السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan asxaabteena dhamaantiin. Haddii aad rabto inaad saameyn ku dhex yeelato bulshadaada iyo inta kugu hareeraysan, marka hore waxay ka bilaabataa hagaajinta iyo sare u qaadidda naftaada. Marna dib u dhac ma aha inaad naftaada dib u cusboonaysiisid. Ma aha micnaheedu dib u cusboonaysiinta aan ka hadlayno inaad naftaada siduu Ilaahay kuu abuuray ka beddesho. Ee dib u cusboonaysiinta aan ka hadlayna ayaa ah hab fikiradaada, adduunyo araggaaga iyo waxqabadkaaga inaad sare u qaado. Aan isla aragna saddexdan qodob aad naftaada kor ugu qaadi karto una noqon karto mid wax soo saar leh kana wax soo saar badan sanadadii hore. Kow, ka dhex bax, ka dhex saar naftaada comfort zone-ka aad ku dhex jirto ama xayndaabkaad ku hareeraysan tahay ama goobada aad la qabsatay. Goobada aad la qabsatayna waa meel qurux badan, waa meel aad ku dareemayso degenaansho, raaxo, aadna isku adkaynayso, naftuna kugu sheekaynayso haddii aad ka dhex baxdo in aad dhib la kulmayso, meel ka fiicanna aadan helaynin. Laakiin waxaa xaqiiq ah inaysan marna ku siinaynin koritaan nafeed, wax soo saarkaagana uu ahaan doono sidii uu ahaan jiray markii hore. Isku day inaad ka baxdo noloshan aad la qabsatay, asxaabta aad la qabsatay, wixii aad qaban jirtay inaad iska samaysid, buugaagtaad akhrin jirtay inaad iska akhrisid. Noloshana waxaa jirta mar walba wax aad caadaysatay, aad la qabsatay. Haddii aysan goobadaas xayndaabkaas aad la qabsatay aysan ku jaalanji garaynayn, ku siinayn waxaad rabtid, kuma siinayso wax isbeddel ah. Noloshuna mar walba waxay ka bilaabataa hal tilaabo aad kala baxdo goobada aad raaxada ku dareemayso. Goobada aad la qabsatayna waa cadowgaaga ugu weyn iyo daminkaaga ugu weyn. Waa inaad jebisaa xeerka iyo nidaamyada ay ku dejisay goobadaasi. Haddii aad samayso mar walba wax fudayd ah, aadna dooratid inaad wax walba ku hesho degdeg iyo fudayd, aadna iska caabisid halganka iyo hagaajinta waxaad rabto, ogow inaadan goobadaas weligaa ka dhex baxayn. Xagla laaban kuma helayso waxaad jabatay. Imaamu Shaafici raximahullaahuna wuxuu yidhi, qofkii ka baqa inuu buuraha fuulo cimrigiisa oo dhan wuxuu ku noolaadaa booraan. Labo, iska ilaali caajisnimada. Caajisnimadu marna kuma xawilayso oo kaagama dhigayso xaqiiq riyooyinkaaga. Guushuna ma ahan mid fudud, oo hadday fududdahay cid walba ayaa si fudud ku heli lahayd. Waxaa xaqiiq ah in caajislayaasha loogu talagelin fulinta guulahooda. Baro qiimaha dhabta uu leeyahay waqtigu. Ku dheg, qabso oo ku raaxayso daqiiqad walba oo ka mid ah. Iska ilaali nashaad la'aanta, caajisnimada, wahsiga. Marna dib ha u dhiganin oo ha u dhigin birito waxaad qaban karto maanta. Saddex, mar walba u fikir si togan. Fikradaha negative-ka ah oo taban waa kuwo ku burburinaya, kaa wiiqaya afkaartaada, xooggaaga, aragtiyadaada iyo weliba awoodda waxqabad ee Ilaahay ku siiyey, hoosna kaaga dhigaya. Isku day mar walba inaad u fikirto si togan adoo ka tixraacaya xadiisu qudsigii, anaa cinda danna cabdi bi, malaha uu addoonkayga iga fisho ayaan siinayaa. Midna niyadda ku hay, hal fikir, hal aragti oo togan aad ku bilowdo subaxnimadaada ayaa saameyn qurux badan iyo isbeddel weyn ku yeelanaysa maalintaada oo dhan. Maskaxda qofka bini'aadamka ah waa mid aad u awood badan. Waan maal gashan karnaa, hal abuuran karnaa, khibrad ku abuuran karnaa, waxna ku burburin karnaa. Afkaar u fikir si togan, afkaartaada qurxoonna ku beddel naftaada iyo dadkaagaba. Waxaan idinka tegayaa dhammaantiin fi amaanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.